golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunaqabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika. kulankan uu golaha ammaanku ka yeeshay xaaladda gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddello dhinaca siyaasadda ah ay ka dhaceen gobolka, isla markaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay booqdeen dalka Eritrea. gudoomiyaha guddiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda ay isla garteen madaxda Itoobiya iyo Eritrea. The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. sidoo kale waxaa goluhu uu ku bogaadiyey sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. waxaa goluhu uu aad u hambalyeeyey tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Itoobiya 9 bishan. wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Tekeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhigooda Eritrea. ergiga Eritrea Nabil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunaqabataynta ka qaadaan dalkiisa. By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region. laalista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda. danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya. Our capacity remain at the early stage, but to build it will require the support of partnership in the Council and its subsidiary. weli awoodeenna waxqabad waa mid bilowa, laakiin si loo dhiso oo loo xoojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo guddiyada hoos yimaada. danjiraha Djibouti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhaxeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin, cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.